السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ديالكم سوء لواذا برنامج كأن ugu magac daray Breaking the Silence on Abuse and Depression. waxaa cawada marti ah oo aan aad ugu faraxsanahay mudane Cabdifataax Qaasim oo ah dhalinyarada qaybta weyn ama mas'uuliyooyinka ugu sarsareeya ugu jirto bulshada ama ha ahaato Soomaaliya ama ha ahaato qaybta dowladda ama ha ahaato baarlamaanka. Cabdifataax kusoo dhawaa walaalkay. waa dhawahay rawda aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aad iyo aad runtii waxa ula socon jiray barnaamijyadaada Breaking the Silence waana ku dhawahay barnaamijka. ما شاء الله جزاك الله خيرا. قف waxaa tahay aan rabay waqti badan inaan ku soo casuumo series kan aan ku magac daray jibinta aamusnaanta ama aamusnaan dambe maliyeelin aan ku talagalay inaan bulshada ugu wacyigelino kufsiga dulmiga bulshada ay isku hayso maxaa la dhahaa adiga noocyo badan oo kala duwan oo mataqaana oppressionka ama dulmiga waxaan rabaa dadkana daawanaya inaad waxyar uga sheegtid qofka aad tahay waxaana rabaa maadaama aad maasha Allah laba shaqo aad isku haysid in aan insha Allah shaqadaada one of them aan focus ka saarno maxaa yeelay midna waa dowladda midna waxa waaye baarlamaanka marka waxaan rabaa qaybta baarlamaanka inaan aan focus ka saarno bal isku sheeg bulshada daawanaysa qofka tahay. bismillaahir rahmaanir rahiim markale waa mahadsan tahay rawda Cabdifataax Qaasim Maxamuud ayaa la yiraahdaa waxaan ahay hadeer wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale waxaan ahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxay la tahay intaasi inay muhiim tahay inta kale taariikhdana nin waxa weeyaan magaaladan Muqdisho ku dhashaan ahay degmo la yiraahdo degmada Waaberi halkaasi quraanka ku soo bartay iyo kutubadana ka raacday oo kutubada diiniga inta kadibna iskuulada qaybahooda kala duwan ama marxaladaha kala duwan ee waxbarashada asaasiga sida dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ayaan magaalada Muqdisho ku qaatay kadibna waxaan aaday oo waxbarasho jaamacadeed aan u aaday dalka Suudaan oo aan labada marxaladood saddexda marxaladood laba marxalad ka mid ah oo ah bachelorka iyo masterka aan ku soo qaatay dalkaasi kadibna muddo ayaan ka shaqeeyay koonfurta Suudaan oo kan ganacsiga waxaan dalka dib ugu soo laabtay markaan halkaasi waxa weeyaan ka soo dhamaaday si aan markaa qarankeyga iyo dadkeyga ugu shaqeeyo aqoonteedana aan ugu faa'iideeyo ayadoo fursado badan ay i banaaneed haddana waxaan arkayay in dalka haddii aqoon-yahanada ay ka wada baxaan inay isugu soo harayaan juhalo dalkana waxa weeyaan uusan la qabsan doonin horna u socon doonin dulmiga iyo dagaalada iyo dhibaatada iyo qaxa iyo faqriga iyo gaajada ka jirtana waxa waa inay sii jirayso sidaa darteeda ayaan u go'aansaday anoo u jeeda private sectorka ka amni fiican kana dhaqaale fiican sometimes inaan ku biiro public sectorka ama governmental institutionka aan ku biiro oo muddo aan kasoo shaqeynay hay'adaha amniga tababar ciidanna waxa weeyaan soo qaatay muddada kadib ayaan waxa weeyaan ku soo biiray marka golaha shacabka markaan ayaa ii horeysa oo koowi ah 2017 ayaan ku soo biiray golaha shacabka haddana waxaan ka mid ahay xukuumaddan injineer Maxamed Xuseen Rooble oo ra'iisul wasaaraha ka yahay ayaan waxa weey ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga ayaana waxa weeyaan joogaa marka waxay la tahay intaasi waa wax kooban oo ku saabsan taariikhdeeda. ما شاء الله مدن Cabdifataax aad u mahadsan tahay manoo macnayn kartaa ama mana fahamsiin kartaa shaqada aad u haysid dowladda taasoo ah wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga shaqadaas maxay tahay
طبعا sidaad la socoto waxaa jiro hay-ado la yiraahdo hay-adaha amniga iyo hay-adaha difaaca ayaa jiro. hay-adaha amniga waa booliska iyo nabad sugidda. hay-adaha difaacana waa xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida guud ahaan waa 4 qaybood. ciidanka asluubta wuxuu hoostagaa wasaaradda cadaaladda ayuu hoostagaa. ciidanka booliskana wuxuu hoostagaa wasaaradda amniga gudaha. ciidanka iyo maxaan ku raahdaa nabad sugiddan sidoo kale wasaaradda amniga gudaha ayay hoos tagtaa. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama militariga dheh qaybihiisa kala duwan badda cirka iyo dhulkaba waxay hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga ayay hoos tagaan. marka wasaaradda ayadu waxay u xilsaaran tahay xagga policyga guud iyo qorshaha guud iyo istiraatiijiyada guud waxa weeyaan gaashaandhigga dalka ama difaaca dalka ayay u xilsaaran tahay. xoogga dalkana waa aaladda fulin lahayd qorshayaashaasi. wuxuu ka shaqeeyaa sidoo kale wuxuu gudbiyaa budgetyada ayuu gudbiyaa. sidoo kale contractyada iyo heshiisyada on level dawlad ka dawlad oo bilateral ah iyo mid gobol ah iyo mid caalami ah markii defense act ama defense la sameynayo heshiisyo la sameynayo wasaaradda ayada ayaa howlahaas waxa weeyaan u xilsaaran. marka taliska waxay ku leedahay korjoogteen oo shaqadeeda ayay ku leedahay. marka taliska xoogga dalkana waxa weeyaan waa qaybtii fulin lahayd istiraatiijiyada iyo policyga wasaaradda. marka hawsheena ka wasaarad ahaan annaga waa intaas. mahadsanid mudan cabdifitaax. waxaan rabaa inaan kaa weydiiyo oo aanan ku dheeraanin qaybta dowlad mas-uuliyadda aad u haysid dowladda maxaa yeelay sidaad u ogtahayba aniga waxaan ka shaqeeya ama ku mashquulsanahay arrimaha bulshada. barnaamijkana waxaan rabnaa inaan focuska aan saarno arrin aad ummadda Soomaaliyeed dhibaato weyn dhexdeeda ku haysa. inkastoo aan wada ognahay Soomaalida inay tahay ummad isjecel, haddana waxaan nahay ummad dagaalkii sokeeye uu dhaawac weyn uu soo gaarsiiyey, kaas oo noo keenay inaan qabiil isku kala saarno. marka systemkan hadda xildhibaanada lagu soo doortona uu yahay system qabiil ku salaysan. waxyar ma nooga macnayn kartaa adiga jagadaada xildhibaan ahaan sida laguu soo doortay iyo qabiilka aad represent garayso? adoo mahadsan. waa mahadsantahay Rawdo. طبعا sida la socotaba bulsho walbaba system ayay leedahay ama nidaamka xukunka ama systemka xukunka dawladaha caalamka ka jira waa ay kala duwan yihiin. ama qaar waa democracy, qaar waa republican, qaar waxa waaye waa boqortooyo ama dhaxaltooyo ah, qaar waa nidaam military ah. wadamada inta badan oo dimuqraadiga lagu sheegana waxa weeyaan xildhibaanadooda ama dadka shacabka matala waxay ku yimaadaan qaab axzaab siyaasadeed waxa weeyaan ayay ku yimaadaan. dalkeena laakiin waa ay ka duwan tahay xaaladiisa maadaama axzaab siyaasadeed dalkii uusan jirin. xaalad burburna waxa weeye dalkii uu lugaha la galay. xuriyadii kadibna axzaab inkastoo ay jireen haddana axzaab bisil oo u bisil inay waxa weeyaan nidaam dimuqraadi ah oo hufan oo waxa weeyaan qof kastoo muwaadina xaq uu u leeyahay inuu xil kastaba waxa isku sharxi karo ama qaban karo ama axzaab siyaasadeed waxa weeye ka mid noqon karo oo dadka wacyigooda uusan heerka gaasisneen. oo markaa un laga soo baxay gumaysigii ayaa haddana waxaa dhacday nidaamkii militariga ayaa dhacay oo 1 man rule ah oo 21 sano waxa lagu jiray. burburaa dhacay. burburkii kadibna xaaladda waxa waaye ka daro dibidhal ayay noqotay. marka shirkii carta 2000 ayaa waxaa bilowday marka nidaam la yiraahdo 4.5 oo ah 4 qabiil oo la yiraahdo waa 4 qabiil waaweyn iyo 0.5 ama barkooda oo macnaheedu yahay 4 qabiil markay waxa weeyaan tusaale ahaan 4 qaataan xubin hadday qaataan kuwa kalena 0.5 ka lagu sheegayna inay kala bar waxa weeyaan leeyihiin. nidaamkaas horta waxa weeyaan xaggaas uu ka soo bilowday waa sii socday ilaa Imbagati laga tago. nidaamkiyaana haddeertaan lagu saleeyay awood qaybsiga gaar ahaan qaybta sharci dejinta iyo qaybta xukuumadda. inkastoo hadda xukuumadda hadda aan ka tirsannahay
ay tahay nidaam 5 beelood waxa weeyaan lagu qaybsaday xilal hor u maqnaa oo sida wasiiru dawlayaal dib waxa weeyaan loo soo celiyay laakiin by the way caqiidada guud ahaan ee siyaasadeed ee dalka ka jirta waa caqiidadaas oo ah nidaamka wax lagu qaybsado nidaamka siyaasiga wax lagu qaybsado waa nidaam qabali ma aha nidaam xisbi ma aha nidaamkaas qabaliga ah ayaa waxa weeyaan la yiri 4.5 oo 61 beelaha kale waxa ay leeyihiin beesha shanaad beelaha la isku yiraahdana oo markaas ay ka mid yihiin beesha shanaad waxa weeyaan waa 4 waaxood wax la yiraahdo Jareerweyne oo aniga aan ka soo jeedo oo nin Jareerweyne ah waxa weeyaan makana ah reer Hiiraan reer Beledweyne ah beesha Jareerweyne beesha Banaadiriga beesha Ruutiska iyo beesha muxuu ahaa Kulmis afarta waaxood ayaa waxa la isku yiraahdaa beesha shanaad marka halka ay kuwa beelaha kale sida hawiyaha daaroodka iyo dirta digil mirifka min 61 u leeyihiin beelahan afarta waaxood ah oo beesha shanaad la isku yiraahdo ama 0.5 leh ama others siday dhihi jireen waxaad rabtaa dheh waxay leeyihiin iyaga 1 iyo 30 xildhibaan ay leeyihiin halka aqalka sare markii la soo gudbo waayo waagii hore golaha shacab bas jiri jiray oo hal baarlamaan ayaa jiray hadeertaan waxaa jiro laba aqal golaha shacabka oo 275 276 iyo 54 oo golaha muxuu ahaa aqalka sare marka beelahan lagu sheego inay 0.5 yihiin ama beesha shanaad ah waxay ku leeyihiin hal xibin oo kaliya ayay ku leeyihiin out of 54 members of upper house taasoo ah runtii ku tumasho xuquuqda siyaasiga ah ee muwaadiniintaas waxa ay lahaayeen iyo matalaadooda halkaas xubinna waxa weeyaan waxay ka heleen dawlad goboleedka Hirshabeelle oo runtii ah dad runtii aad iyo aad u qiimo badan inta gartay laakiin dhammaan gobolada kale ee soo haray maamul goboleedyada kale oo soo haray waxaad u moodaa xuquuqdii in ay ku lahaayeen beelahaasi inaanay waxa weeyaan helin systemka dawladda hadda jirana markii loo fiiriyo judiciary-ga wax matalaad ah ma jirto ama hay'adda garsoorka guud ahaan maxkamadda sare xeer ilaalinta iyo maxkamadda racfaanka heer gobol iyo heer federaalba heer maamul goboleed waxa weeyaan ku dar marka loo soo daadego dhanka muxuu ahaa talishada ciidamada kale hogaanka waxa weeyaan kuma jiraan waxa kale oo ku sii dheer muxuu ahaa dhanka maamul goboleedyada haday noqon lahayd madaxweyne iyo madaxweyne ku xogeen waxa weeyaan wax xuquuq ah kuma laha dhamaan gobolada dalka baarlamaanadana sidaas oo kale wax xuquuq ay ku leeyihiin ma jirto marka laga reebo Hirshabeelle oo hadeertaan xilligan Cali Goodlaabe madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle uu yimid waxa weeyaan oo aan ku yeelanay gudoomiye ku xigeenka labaad dawlad goboleedka Hirshabeelle laakiin maamulada kale wax xuquuq ah waxa weeyaan kama jirto dhanka financial sector ka ahaado ama hay'adaha amniga ama hay'adaha difaaca ama hay'adaha kale ee garsoorka waxaad moodaa xuquuqda ay lahaayeen beelahan waxa weeyaan inay waxa weeyaan ku maqan tahay marka systemkaas ayaa horta waxa weeyaan jiro marka laga soo tago golaha wasiirada ama laanta fulinta executive lineska ama golaha xukuumadda marka laga soo tago inta kale waxaad moodaa inay waxa weeyaan ku dulma yihiin waxna waxa weeyaan caqiido sameysantay oo dastuurka aanu imaan laakiin curfi iska noqday oo ah مثلا beelhebel madaxweyne leedahay beelhebel haday madaxweyne qaadato beesha kale waxay leedahay ra'iisul wasaare beelheblaayo waxa weeyaan uma soo dhawaa karan ilaa waxa way wixii ay caqiido noqdaan sidoo kale garsoorkii in beelhebel waxa weeyaan ay u xiran tahay waxa keenayna waxa weeyaan inta badan nidaamka hadda qabaliga wax lagu qaybsado ayaa waxa weeyaan runtii keenay oo aan rajeynayo in laga bixi doono haddii systemka dawladnimada hadeertaan aan haysano ama nidaamka xukunka hadda aan haysano loo bedelo nidaamka xisbiga ay laga baxo nidaamkan qabaliga marka laga baxo nidaamka xisbiga loo baxo dadkana ay wacyi yeeshaan markaasoo waxa weeyaan dadka ay ku tartami doonaan aragti iyo fikir iyo istiraatiijiyad iyo wax wada lahaansho iyo aragti siyaasadeed oo waxa weeyaan ay wada jir dadka waxa weeyaan u wada yeeshaan iyo sidoo kale tirokoob guud markii dalkan waxa weeyaan uu yeesho ayaa waxa weeyaan la oran karaa dalkani waxa weeyaan wuxuu ka baxay nidaamkii qabaliga oo u gudbay nidaam xisbi ah oo qof kasto muwaadin ah markaas waxa weeyaan xisbigii uu rabo uu ka mid noqon karo xil kastana waxa weeyaan isagoo xisbiga matalayo waxa weey isku soo sharxi karo laakiin hadda nidaamka jiro waa nidaamkaas
si qurux badan oo waaxid ayaad u macnaysay waan kaaga mahadcelinayaa aniga laakiin waxaan rabaa saan hore kugu sheegay focuskayga aniga og inaad tahay qof labo mas'uuliyad oo aad muhiim u ah bulshada u haysid inaan focuskayga saaro qaybta bulshada ma isleedahay caqabadaha aad ka soo hadashay inay sal u leedahay cunsuriyadda ama faqooqa loo geysto qabaa'iladan 0.5ka loogu yeero maxaana isleedahay your own personal experience adiga ahaan adigoo qof dhalinyaro ah haddana caqabadahaas sidee mataqaanaa aad uga gaashaansatay oo heerka maanta aad bulshada aad ka gaartay u gaartay waa mahadsan tahay horta marka laga hadlayo waxyaabahan racismka ama cunsuriyadda marka laga hadlayo waxa weeyaan sida international financial crisis ayaan maqli jirnay arrintan ayadana sidoo kale waa international crisis oo caalamka oo dhan iyo dhammaan qaaradaha waxa weeyaan wax ka jira waay oo waxa weeyaan shacab kaga duwan ma jiro ama bulsho kaga duwan ma jiro bulshooyin fara badan ayaa ka cawda haday Africa ku nool yihiin haday Asia ku nool yihiin haday Latin America ku nool yihiin iyo haday waxa weeyaan Europe ku nool yihiin haday North qaaradda waqooyiga America ay ku nool yihiin ba iyo Australia meel kastaba caalamka waxa weeyaan ka jiro haba kala duwanaadaan levelada laakiin tan ugu xun waxa weeyaan gaarta ilaa qofkii dadka qaarkood xadgudubkooda uu gaaro in la dilo la gubo ama genocide waxa weeyaan lagu sameeyo marka cunsuriyadaas guud ahaan markii laga hadlayo inkastoo ay u baahan tahay dad waxa weeyaan aad ugu takhasusay cilmi ahaan haddana aniga intaan ka fahansanahay cunsuriyad waxa jirto xagga diinta ah diin ka liidata inay waxa weeyaan dadkii aaminsan yihiin dawladaha caalamka markii loo fiiriyo anaga diintan islaamka waa hal wax hadda kala sareeyo ma jiro laakiin dawladaha qaarkood markii la joogo laga yaabo inay diimo kala duwan ay haystaan oo la yiraahdo diintan mesela tana number 1 ka ah tana waxa weeye second ka ah tana third ka ah in la yiraahdo waxa kale oo jirto cunsuriyad xagga ethnic ah ama cirqiga ah ayaa waxa weeyaan ka jirto ethnic hadda tusaale ahaan ethnic groups oo waxa weeyaan Myanmar oo kale iyo muxuu ahaa ethnic groups waxa weeye ka jiro Rohingya dad waxa weeye muslimiin waayar waxa kale oo waxa weeye ka jiro muxuu ahaa ethnic group markii la yiraahdo Ethiopia oo kale oo hadda Oromo Soomaalida iyo Cafarta Gambeelada iyo Tigreega Amxaarta waxa weeyaan la yiraahdaa ma ahan qabali ma aha waa qowmiyad waay waxa kale oo jiro kuwa madhabeed tusaale ahaan madaahibta hadda Christian guud ahaan markii la yiraahdo asaga Catholic Orthodox iyo wuxuu ahaa Protestant iyo Anglican iyo u kala baxa marka ayadana waxa weeyaan iyo qaar kale oo badan waxa weeyaan ayaa laga yaabaa laakiin annaga madhabteena waa madhabta ahlus sunnaha weeyaan muxuu ahaa aan haysano Shaafici Hanbali Maliki iyo Abu Hanifa ayaan kala baxnaa laakiin marka la fiiriyo muslimiinta dhaxdooda waxa kala jiro Shiica iyo Sunna ayaa kala jiro Shiicada ayaa kala baxdo 12 iyo Zaydiya Ismaaciiliya wixii hadda intaas ayay u kala baxaan waxa kala jiro cunsuriyad dhanka luqadda ah luqad waxa weeyaan loo liidaayo inkastoo Soomaali gudaheeda waxa weeyaan ay ka jirto laakiin haddana local languageska dawladda fara badan ayaa ka jiro oo la yiraahdo luqadana number 1 ah luqadana waa number 2 tan waa number 3 waxa weeyaan la yiraahdo waxa kale oo jiro midda ku saabsan xagga midabka oo qofka hadduu midabkiisa waxa weeye madow yahay ama maarin yahay waxa weeyaan lagu cunsuriyeenayo cunsuriyad waxa jirto xagga farsamada iyo xirfadda مثلا sida anagoo kale tumaal leeyahay qofka biraha tuma inkastoo tumaalka waxa weeye nabi ilaahi daawud kana xadaadan waxa weeye oo ilaahay farsamo uu nabi ilaahi daawud waxa weeye ay kamid tahay qofka مثلا farsamada ku shaqeysanay kabaha oo kale kabaha tolay oo kale in waxyaabahaas waxa weeye lagu liido marka waxyaabahan guud ahaan waxay ka jireen jasiirada carabta ayay waxa weeye aad kaga jireen ilaa waxa weeyaan oo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ka soo baxo kadibna uu sheego uu yiraahdo la fadli li arabiyyin ala ajamiin illa bitaqwa macnaha arab kama fadli badna ajami oo madow ya cadaan kala fadli badna kuma kala fadli badna muxuu ahaa kuma kala sareeyaan xagga midabka kuma kala sareeyaan waxa ay ku kala sareeyaan waxa weeyaan alla ka cabsiga ayay ku kala sareeyaan iyo amalka wanaagsan ayay waxa weeyaan ku kala sareeyaan marka guud ahaan marka waxaan rabaa
markii nabi calayhi salaatu wasalaam uu magaalada maka soo galay in yar ayaan rabaa inaan dadka aad u fahansiiyo markuu soo galay magaalada maka waxaa la socotaan nabi calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa waxaa ka mid ahaa dad madmadow oo sida hadda bilaal ibnu rabax oo kale waxshiin bin xarb saxaabi la yiraahdo ayaa ka mid ahaa bilaal wuxuu ahaa mu'adinka rasuulku ahaa magaalada maka markii la furtay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam bilaal ayuu fiiriyey wuxuu ku yiri bilaalow nin aad u cod macaan uu ahaa islaamkana waxa waaye dartiisa aad waxa waaye loo soo ciqaabay oo dhibaato fara badan waxa waaye islaamka waxa waaye u soo maray ilaa marka dambe waxa waaye la iibsado wuxuu amray marka rasuulka inuu bilaal kacbada korkeeda koro kadibna uu aadaamo marka nin la yiraahdo Ataa bin Asad ayaa wuxuu yiri ilaaha mahad iskale maanta inuusan aabahayga nooleen waayo hadduu aabahayga noolaan lahaa waxaanu arki lahaa oo ah nin madow marka nin la yiraahdo Xaaris bin Hishaam wuxuu yiri nabi Muhammad ma wuxuu waayay qof kale miyuu waayay markuu madowgaan saaraayo muxuu ahaa kacbada korkeeda marka Abi Sufyaan saxaabi la yiraahdo markii dambe islaamay oo odayaashii waaweyn Qurayshna ka mid ahaa ayaa wuxuu yiri aniga arintan haddaan ka hadli lahaa waxaan ka baqaa in arintan rabbus samaa ama rabbigii samada ay gaarto kadibna waxa waaye leego canaanto markaasa maliku jibriil soo degay oo rasuulkana u sheegay rasuulku uu wacay marka wuu weediyay wuxuu ku yiri waxaan ayaa tiraahdeen waxaan aad dhahdeen oo kala sareentan aad sheegaysaan madowga cadaankana islaamka mar hore ayuu ka gudbay markaasa aayada waxaa soo degtay ahayd marka yaa ayuha naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha waja'alnaakum lama dhihin yaa ayuha almuslimuuna lama dhihin fiiri naas marka la hadlaayo waa dadkana muslim iyo gaal cadaan iyo madow nooc walba ay yihiin waayo muslimka laguma gaariyeen aayada marka waxay ku wajahan tahay dadka waxaan idinka abuurnay lab iyo dhidig ayaan idinka abuurnay waxaana idinka yeelnay shucuub iyo qabiilo ayaan idinka yeelnay sababtana waxay tahay litacaarafu inaad isku garataan ma ahan inaad isku dishaan inaad isku xiqdidaan inaad isku xasadaan inaad waxa weeyaan aad genocide isku samaysaan inaad isku gubtaan inaad isku laysaan inaad isku xaqirtaan inaad isku liidaan looma sameynin inaad isku barataan aad isku garataan ayaa loo sameeyay aayadda marka ugu dambeyn waxay leedahay inna akramakum cindallahi atqaakum yacni kiina ugu sharafta badan waxa weeyaan waa kan idinkugu cabsida badan ayaa waxa weeye ugu sharafta badan Soomaalida markaan usoo gudubno waxaan dhahnaa annaga waxaan nahay ahlu sunna diinta nabiyullaahi Muhammad ayaan haysanaa marka haba la yiraahdo lagu kala khilaafsanaado Soomaali originkeeda ma Afrikaana ma Caraba ma dad waxa weeyaan isku jira laakiin haddana dhanka midib ahaan dhanka wiji ahaan dhanka luqad ahaan dhanka diin ahaan dad dhaqan ahaan waa dad inta badan waxa weeye isku dhow aan wax badan ka jirin marka Soomaalida marka cunsuriyadda waxa weeye ka jirto waa mid siyaasadeed kow oo ah wixii hadda aan ka soo sheekeenin oo ah hebel ma geeyo madaxweyne hebel ma geeyo ra'iisul wasaare hebel wuxuu leeyahay labo hebelna afar uu leeyahay hebel taliye ciidan ma qaban karo hebel ku-xigeen uu qaban karaa hebel magaalada muqdisho wax kama noqon karo heblowa wax ka noqon karo yacni qabaa'ilada Soomaalida laftirkooda nidaamka qabaliga Soomaalida laftirkooda ayaa ah basal kubii lahaa waxa way iyaga isa sii tafatira marka cunsuriyadaas waxaa la yiraahdaa cunsuriyada siyaasadeed ayaa la yiraahdaa oo tan iyo inta la soo qaatay haddaad tagto xataa muxuu ahaa feelalka xukuumadaha soo maray dalkan soo mar haddaad dib u barto waxa waad ogaanaysaa in dadka qaarkooda waxa weeye aanay janan xataa waxa weeyaan helin oo muxuu ahaa ciidamada iska badaa waxyaabaha kale waxaa kaloo jiro dhanka bulshada oo runtii waxa weeye aad u xun waxyaabo qaarkoodana waxa aniga aan goobjoog waxa weeyaan u ahaa marka laga soo tago qofkan waa tumaal qofkan waxa weeye boosaneer uu qoda qofkan waxa weeyaan waa xamaali qofkan waxa weeyaan kabu tola qofkan waxa weeyaan alaabaha guryaha la dhigta ayuu sameeyaa waxyaabahaas oo runtii qofka inuu xalaal quudad yahay inuu shaqaysto aanay ahayn wax ceebba oo nabiga xataa waxa weeyaan qofka dhididkiisa maala oo iyo qofka masaajidka iska fadhiya ee iska cibaadeysta wuxuu ka jecel yahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka cibaadeysta haddana shaqadiisa qabsada marka qofka intuu wax dhici lahaa ama wax dili lahaa ama hanti dadow hamin lahaa ama dhibaato u geysan lahaa waa arin wanaagsan qofka inuu dhididkiisa maalaha u yaraadeen intaas waxba inuu ku iimaan qabo laakiin dadka qaarkood Soomaalida ayagoo haddana shaqadii iyo waxaasoo dhan farsamadaas u baahan haddana dadka waxa weeyaan inay ku caynayaan oo dad dhan la yiraahdo waa tumaal sababta ay u noqotay waa waxaas in la yiraahdo dadka qaarkoodana waxa weeyaan sidan taariikhan ku maqli jirnay hebel iyo hebel ayaa waxa weeyaan isla socday meel gaaje waxa weeyaan tageen markay tageenna waxa weeyaan
xoolo baktiyay ayuu hebel gaajadii celin waayey wuu cunay markuu cunay kadib hebelna wuxuu noqday muxuu ahaa boonuu noqday kaasuu noqday nasab dhimanuu noqday oo waa sheekooyin waxa weeyaan la sheego mararka qaarkiis xataa way banaan tahay meydka waxa weeyaan in la cuno markii gaajada nafta waxa weeyaan qofka waxa weeyaan loo baqo xoolaha iska badaaye marka by the way waa sheekooyin iska raqiis ah arrimaha bulshada waxa weeyaan waxaa ka mid ah tusaale ahaan xagga guurka oo beelheblaayo isma geeyaan iska badaa beelaha kale xataa beesha hal isla ah 4.5 markii la yiraahdo beesha halka isla ah ayaga laftirkooda waxa weeyaan 4.5 waxa way ka dhax sameeysan yihiin oo la leeyahay beelheblaayo waxa weeyaan ma guursan karto waxyaabaha dhacay waxa ka mid ah qofka in tacaddi loogu geesto iyadoo aan laga baqaynin muxuu ahaa cid ka daba imaanaysa aanay jirin tusaale ahaan qof baa la dilayaa meydkiisa waxa weeyaan laga tilaabsanaya waxa leeyahay war qofkaan ma la qaado marxalado adagan soo marnaa hadda waxa weeyaan waa ilaahay in lagu xamdiyo waayo oo hadda maanta qof hadii la dilo dawladda jirto soo qabanaysa nidaamka sharciga waxa weeyaan marsiinaysa wixii qaladaad oo garsoor ah dhaca waa iska gaar laakiin hadda cid ku dhiiran karto inay qof maanta disho waxyaabaha aan soo marnaa waxa kamid ah qof in la dilo gurigiisa la tago tacsiidiisana la cuno iyadoo ninkii isagoo qorigiisa wato waxa weeyaan cidna waxa weeyaan mararka qaarkiisa ay dhacdo qofkii in la dilo la leeyahay lama qaadi karo carwa kaas waxa weeyaan cidii qaada waxaan aragnay mararka qaarkiisa aan goobjoog u ahayn qof dumar ah xaamil ah inay isku dhacaan qof kale oo dumar ah qofkii dumarka ahaana ninkeedii waxa weeyaan meesha soo gelisay ee dhahday manaagtana aniga xad gudbi karta gabadhii uurka lahayd waxa weeyaan xabad ayadii cunugeedii waxa waa la istaafsiyo oo xaamil ahayd waxa kale oo kamid ah dad yani famila u shaqeynayay oo shaqadoodii markii loo bogay haddana aanan haysan xuquuqdii ay u baahanayeen markii la sii waayay ay damceen inay ka tagaan lama sabito la yiraahdo dahab baa naga xadeen dhibaata aan u geysateen oo bac waxa weeyaan in la gubo waxa weeyaan lagu tasliyo lagu dilo ayaa dhacday oo goobjoog aan waxa goobjoog aan u ahayn sidoo kale gabdho masaakiin oo guriga ka shaqeynayay in wiilashii gurigaas waxa ay ku xadgudbeen markii sheegatayna in waxa weeyaan lagu xadgudbay iyadii waxa weeyaan lagu nabay oo la yiri gabdhe wiilasheena ayay nabaysaa oo dhibaato far badan waxa weey loo geystay waxa dhacday in caruur waxa weeyaan oo wiilal ah in la kufsaday markii waxa weeyaan dadkii ay dacwoodeen la yiri ma anaga sharafteena u dhacaysaa in ayagiina waxa weeyaan loo xadgudbay marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo soo jireen oo xanuun badan laakiin hadeertan waxa weey laga sii gudbayo arinta ku saabsan guurka hebel ma geeyo laftirkeeda waa wax soo jireen ah laakiin waxaad moodaa hadeertan laftirkeeda in dadka waxa weeyaan ay ilbaxeen in laga sii gudbayo in yar waxa weeyaan ay dambayso dhankaas waxa weeyaan waa dhanka arrimaha bulshada dhanka shaqaaleysiinta iyo muxuu yahay waxbarashada oo kale in marka qaarkiisa lagu yiraahdo beel heblaaye sidee wax ku baran kartaa beel heblaaye sidee kaalin hebel ku gali kartaa waxa weeyaan waxa inkastoo ay dadaal ku xiran tahay haddana marka qaarkiis waxa waa inaad la kulanto waxa kale oo kamid ah qofka in lagu shaqaaleysiyo aan lagu shaqaaleysiinin xukuumad ha noqoto dawlad ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa kuwa private sector-ka waxa jirtay in qofka aan loo fiirinaynin qofkan ma mudan yahay shaqadan shahaada ama cilmi ahaan aqoon ahaan iyo khibrad ahaan ma mudan yahay qofkan mise ma mudna inaan loo fiirinaynin laakiin un la yiraahdo qofkan bayl hebel miyaha waxa weeyaan booskaas gay in la yiraahdo oo dadkii kale waxa weeyaan oo laga yaabo inay ka aqoon badnaayeen in xuquuqdooda waxa weeyaan waa waxyaabaha muxuu ahaa dibindaabiyada iyo kansarka ku ah xataa horumarka dawladnimada waxa weeyaan ku ah waayo adiga cunugaada tusaale ahaan ama xaaskaaga hadday xanuunsan tahay ama odaygaada hadduu xanuunsan yahay dhakhtarka aad u geenaysid ma dhehaysid beeshee waaye ma dhehaysid waxaad leedahay dhakhtarkee ugu fiican oo dhanka wadnaha ku fiican dhanka beerka ku fiican dhanka kelyaha ku fiican dhanka muxuu ahaa urku jirtada ka fiican ayaad waxa weeye leedahay carruurtaadana sidaas oo kale ayaad samaynaysaa gaarigaada hadduu halaysan yahay ma dhehaysid beel hebel aan u geey laakiin waxaad leedahay gaarigayga makaanikee ugu fiican oo waxa weeyaan samayn karo laakiin nidaamkii dawliga ahaa iyo private sector-kii maxaad u malaynaysaa marka waxay u baahan tahay dadka waxa weeyaan loogu kalsooni badan yahay in waxa weeyaan loo daayo waxyaabaha ugu cajiibsan marka waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdaa meesha ugu dambeeya loo cararo waa diinta iyo masaajidada haddii masaajidadii qayli ay kasoo yeerto ayna almafar waxaan ula jeedaa waxaa jiro islamic movements waxa la yiraahdaa ka dilaacay dalka laga soo bilaabo 70 inkastoo xarakaadkii suufiga ahaa
oo qaadiriyada iyo muxuu ahaa axmediyada iyo saalixiyada ay hore u jireen xarakaad kale ayaa dilaacay oo casri ah oo waxa weeye aan wada naqaano xarakaadka iyaga ah marka waxay dhacday in uu u muuqdo xarakadii islaamiga movementska ama dhaqdhaqaaqdii islaamista inuu u muuqdo qaab qabliyadeed oo ah in looga faa'iideeyo beelo gaar ah in looga faa'iideeyo oo beelaha kale aan xuquuq yeelanin hoggaanka xarakaadkaasna inay beelo gaar ah waxa weeyaan yeeshaan beelo gaar ahna waxa weeyaan laga mamnuuco oo marka xarakada ama islamic movementskaas aad saa u fiiriso oo dadka ugu sareeya ama haaya meelaha ugu muhiimsan inay leeyihiin beelo mucayana marka waa kuwii dacwada dadka inay diinta gaarsiiyaan waxyaabaha ka waaniyaan waxa weeyaan ay ahayd marka ugu dambeyn arrintan waxa weeyaan ma rabo inaan waxa weeyaan ku sii dheeraado laakiin guud ahaan marka laga hadlaayo cunsuriyadda sideedaba noocyadaasi siyaasiga diiniga madhabiga qabaliga bulshada ah iyo qaybta waxa weeyaan xarakiga ama diiniga inay waxa weeyaan ka jirto dalka guud ahaan tusaalaha ugu badan waa waxyaabo idinka hore aad u maqasheen oo gabar wiil guursatay waxa weeyaan la gubay inaad maqasheen qaar kalena waxa weeyaan oo xiliyadii hogaamiye kooxeedoo kale la dilay oo markii ay ayagoon guur gaarinba in wiil lagu yiri gabadhan isaga har wiilkii markuu damcay inuu ka harana gabadhii ay tiri kama haraayo kadibna gabadhii loogu hanjabay hadaadan ka harin anaga adduunka dhaafinen ninka waxa weeye dilkaa loo geystay waxyaabahaasi waxa weeyaan waxyaabo waxa weeyaan na soo maray weeyaan runtii laakiin loo baahan yahay waxyaabaas in laga gudbo oo caalamka hadda waxa weeyaan qarnigan hadda la taagan yahay qarni technology qarni oo muxuu ah dadka civilization ama ilbaxnimadoodii hore u sii socoto oo qarni globalization waxa weeyaan la joogo in laga sii gudbo generation of technology waxa weeyaan la joogo caalamkii oo dhan waxa isku furmay oo waxaan joognaa Mareykanka uu waxa weeyaan madaxweyne waxa weeyaan uu ka noqonayo qof madow waxa weeyaan uu ka yahay wadamada qaarkooda waxa weeyaan ay hoggaanka sare waxa weeyaan ay ku jiraan oo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo wasaaradaha gaashaaniga waxa weeyaan ay qabanayaan waxaan rajaynayaa dalkeenana maadaama dadkeenan dhaqankoodii hore adeega ahaa iyo saameyn badan ay ku yeelatay dalal far badan oo marka waxa weeyaan carabta iyo wax la mid ah waxaan rajaynayaa inay ka gudbaan nidaamkaas isaga hadduu ilaahay raado Fatah, you spoke like a true politician. وكاغا مهد علي جزاك الله خيرا. لكن waxaan rabaa inaan politics kaniko meeshas inuu yaalo oo anigoo fahamsan inaad tahay mas'uuliyadda ku saaran shakhsigaaga iyo bulsho ahaan wixii inaan u fahanno ee dhaawaca isgaarsiinayno maxaa yeelay annaka hadda for example dadkeena dibadda ku nool waxaan aan experience ahaan nagu dhacdo in maxaa la dhahaa haween ahaan noola cunsuriyeeyey mararka qaar maxaa la dhahaa muslim ahaan madow ahaan marka iyo mataqaanaa xitaa ma arkino dad qaxooti ee waddankoodii kasoo tagay oo cunsuriyada kala duwan noolagu sameeyo marka waxaa mucjise ee una baahan in laga hadlo dadka dibadda jooga waxaa dhihi karaa waa fahmeen qaarkood xanuunka ay leedahay cunsuriyadda iyo mataqaanaa iyo dhaawaca qofka ay mataqaanaa confidence ama dadnimadiisa ay soo gaarsiin karto marka ma qiyaasi karo qof waddankiisa joogo oo haddana laga cunsuriyeynayo because annaka waxaan niyadda ku sabnaa dhul gaalaan joognaa ama dhul ajnabiyaan joognaa maalmaha ka mid aan ku noqon doona waddankeena waa ka bixi doonaa marka maskaxda waxay u fahamtaa inay temporary tahay marka maxaad isleedahay inkastoo adiga aad tahay qof maasha allah waddankii power ku leh oo mas-uuliyadaha meelaha ugu sarreey ka gaaray dadka ma arkino everyday peopleka oo average peopleka experiencekooda ama qalbigooda sida ay dareemayaan ma noo sheegi kartaa runtii horta waxaa jirto xikmad dhehaysa haddaad rabto xanuun inaad tijaabiso hadal inaad tijaabiso xanuunka uu leeyahay intaadan qof kale ku oran nafsadaada ku dheh ku tijaabi nafsadaada haddii aad dareemayso inuu xanuun yahay qofka kale walaalkaada waxa weeyaan ha ku dhihin soomaalida waxaa la socotaan dadkiinaan yurubta ku nool dad badan waxay ka cabanayaan in la cunsuriyeeyo South Africa tusaale ha ugu dhow markaan soo qaadano
oo waddan Afrikaan ah Soomaalida waxay yiraahdaan dadka South Africaanka waa dad cunsuriyiin ah Soomaalida uma ogola waxa weeye inay ku ganacsadaan waxa la leeyahay Soomaalida waxa loo dilaa cunsuriyad Soomaalida waxa weeyaan muxuu ahaa waa la target gareystaa qaarkood waxa la leeyahay Soomaalida waxa weeyaan waa la guba wuxuu dareemayaa marka xanuun isagoo ku sugan dal kale oo shisheeye isagoo raadinayo xuquuq marka xanuunkii isaga ahaa haddii qof walaalkiisa waxa weeyaan uu ku sameeyo oo dal la leh diintii ay wadaagaan dadnimo ay wadaagaan dhaqan ay wadaagaan luqad ay wadaagaan markuu ku sameeyo way ka xanuun badan tahay sababtoo ah dulmi waxa ugu daran kan sokeeyaha waxa weeyaan uu ku geysto isagaana waxa weeyaan ugu xanuun badan marka طبعا aniga personally horta ma soo marin qof waxa weeyaan inuu cunsuriyeeyo intaan iskuul ku noolaa waayo waxyaabaha ugu badan oo ereyada la isticmaalo aniga isticmaali jiray dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay hadda ay waxa weeyaan ilbaxeen oo wixii ay sheeganayaan inaysan ka xishoonin laakiin aniga inta iskuulka ila soo dhigatay si fiican ay yaqaanaan hadda waxa waa day qaar daawanayaan iyo haday nool yihiinba waxa weeyaan inaan ahay nin jareer ah waxa weeyaan nin ku faanan ahaa nin sheegtaan ahaa bulshadana waxa weeyaan aad ugu dhex jiro markaan dibadda tagayna sidaas oo kale dadka jaamacadda ila dhigtay oo aad iyo aad ay yaqaanin oo nin waxa weeyaan ku xiran albaab ma ahayn oo nin waxa bulshadaas waxa weeyaan ku dhex noolaan ahaa laakiin qaar fara badan oo nala mid ah waa dareemayaa in markii eraya qaarkooda lagu dhaho ama la dareensiiyo waxyaabahaas qofkan siduu u noqon karaa qofkan siduu ku geyn karaa qofkan siduu ku hamin karaa qofkan siduu xilkan ku qaban karaa qofkan siduu iskuulkan ku dhigan karaa qofkan siduu isbitaalkaas waxa weeyaan u aadi karaa isbitaaladaas oo jibka ah waxa weeyaan waa la gartay qofkan halkan siduu waxa weey ku noqon karaa qofkan siduu ganacsi waxa weey ku furan karaa waxyaabahaas runtii xanuun aad iyo aad waxa weeyaan ay bulshada ay ku leedahay qof dalkiisii waxa weeyaan lagu cunsuriyeenayo oo loo arkayo inuu yahay second level inuu yahay ama darajo hoose ama darajo labaad inuu yahay waa wax xanuun badan oo waxa weeyaan loo baahan yahay bulshada inay aad isaga wareysto dhibka ugu badanna wuxuu ka jiraa waxa weeyaan marka laga soo tago wacyigelinta bulshadeena bulsho run isku sheegta ma bulsho xaqiiqda waajahda ma dhaawaca wuxuu bogsadaa marka si fiican waxa weeyaan ayodinta marka la isticmaalayo ama daawada markii la isticmaalayo si fiican loo rigo oo wasakhda dhan waxa weeyaan laga saaro aaday u xanuun badan tahay laakiin haddana daawada iyo boxinka ayaday waxa weeyaan ku jirtaa laakiin bulshadeenan waa isku mujaamaleena waxyaabaha aan kor ka leenahay waxaad arkaysaa wadaad inuu ku khudbeenayo qabyaalada way xun tahay sidaan ay tahay haddii gabadhiisa waxa weeyaan la yiraahdana gabadhaada wiilka ha lagu daro wadaadka isaga ugu soo horeeyo oo diintii waxa faafinayo qabaliyadii iyo cunsuriyadii dadka ka waaninaya isaga waxa weeyaan number 1 ka sheekooyin waxa la sheegaa meel ka mid ah in oo qusul badan nin wadaad ah inuu masaajid ka istaagay oo yiri gabadheedan fi sabilillah waxa weey ku bixinaya laakiin waxaan u baahanahay wiil wanaagsan oo diinta yaqaan oo dhaqan wanaagsan gabadhiina waxa weeyaan mas'uuliyadeeda qaadi kara marka qabaa'ilada qaar marka oo dadka si kale ay u arkaan oo ay u arkaan inay liidaan inaysan geenin ay u arkaan ayaa gacanta ugu hortaagay marka ninkii wadaadkii ah warkiina waa ka tagay sheekadiina waa ku socon weyso ninkii waa ku socon waaye oo beeshiisii ma noqonin oo beelo kale u noqday marka wuxuu yiri masaajidka ciyaarta ka daaya macnaha waxa weeyaan masaajidka ciyaarta ka daaya wuxuu ula jeedaa waxa qofkan ku qanacsanaa ama beeshan ku qanacsanaa ma taagin ayuu waxa weeyaan ula jeedaa marka dhibaatada runtii waxa jirta waxa waaye ata'muruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum annaga waxaan rabnaa inaan dadka wanaaga farno haddana wanaagii nafsadeena waxa weeyaan kama bilaaweeno wadaadadeena ama dadkeenan Soomaaliyeed waa dad oral society ah laakiin practically markii la yimaado dad waxa weeyaan run isu sheego ma ahan tusaale ahaan marka laga soo tago Soomaali dhaxdeeda Soomaali maanta nin ka duwan haduu yimaado hadda مثلا qof oo banaadir waa dad cad yani waxa la leeyahay maxaa dhacay Arab ama Boortaqiisa waxa weeyaan dalka soo gal ama qof cusub qof ajnabi ah loo arko qof ajnabina madow yadan haduu yahay Soomaali way adag tahay inuu waxa ku ganacsado maca dalka Soomaalida haddana waxay rabaan dalalka kale inaan lagu cunsuriyeenin iyaga ay ka ganacsadaan oo sidee rabaan waxa weeyaan ay ugu dhaqmaan oo si caadi ah loo arko sida muwaadin oo kale laakiin kii gudaha kula noolaa oo walaalkiis aha inuusan xuquuqda isaga uu rabay mid la mid ah waxa weeyaan uusan u rabin
marka waxa loo baahan yahay waxa weeyaan in practical wixii waxa weeyaan laga dhigo runta la waajaho kan la cunsuriyeenayana inuu banaanka u soo istaago waxa uu yahay qofka sidiisaba horta kama bedelmaayo rawda waa qof dumar ah dumarnimo ila abad kama bedelmayso cabdifataax qaasim waxa weeyaan waa qof u dhashay beesha jareer weyn ila abad waxa weeye kama bedelmaayo marka aniga waa inaanu arkin horta jareer inaysan wax ceeb ah ahayn inaanu arkin sida muwaadinka kale maalan haddii la yiraahdo hebel waa daarood uusan wax dhibaa u arkeenin hawiye haddii la yiraahdo uusan wax dhibaa u arkeenin digile marifla haddii la yiraahdo uusan wax dhibaa u arkeenin dir haddii la yiraahdo uusan wax dhibaa u arkeenin anigana waa inaanu arkaa waxaasoo kale la mid ah ama alqaabyadaasoo kale la mid ah inaanu arko waxa weeyaan waa the first step oo waxa weeyaan looga gudbi karo second stepna waxa weeyaan dooda adag arrimahaas waxa weeyaan in laga yeesho doodahaas adag oo xaqiiqda lagu waajahayo oo runta qofka isagoon cabsanaynin aragtidiisa si madax banaan oo xur ah waxa weeyaan oo u dhiwanayo isagoon cidna waxa weeyaan ka baqeenin oo dhibta meesha ay ka jirto ma waxay ka jirtaa dhaqankii soo jireenka ahaa oo tagay oo odayaashii aabayaasheeni awowayaasheeni ay nooga tageen miyuu ka jiraa dhaqanka ma wuxuu ka dhaqankan xun ma wuxuu ka jiraa oo wili meesha ku sii hayo wadaadadii aanan diinta waxa weeyaan ka run sheegeenin miyuu ka jiraa mise waxaan u baahannahay system dawladeed oo waxa weeyaan naqasba nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma bedelin qasab kuma bedelin laakiin wacyi ayuu ku bedelay wacyigaasna waxay u baahan tahay marka garnaqsi iyo gar isku dhigasho iyo dood wadaagayo laga sameeyo waxaan aad u daawan jiray big debates la yiraahdo South Africa big debates of South Africa lagu qabto lagu qabanayo oo cadaanka kuwa hindida kuwa kale muxuu ahaa madowga ay inay soo wada fariistaan ay ka wada doodayaan oo kuwa cadaanka waxa weeye runta loo sheegayo kuwa madowga waxyaabaha iyaga laftirkooda ay qayb ka yihiin waxa weeye loo sheegayo dadka inay bulshada sidaas ay isugu laabxaaran ee runta sheegaan dib markaas waxa weeyaan ee ugu gudbaan marxaladda waxa weeyaan taagan oo ah arrimaha bulshada oo dhanka cunsuriyadda waxa weeyaan ku saabsan qaabka lagu gudbi lahana waxaan u arkaa qaab wacyigelineed inay ugu soo horeyso oo dhanka diinta iyo dhanka muxuu ahaa doodaha logica ah ay maanta taagan iyo caalamka siduu kaga koray dadka in maskaxdooda waxa weeyaan loo kabciyo dad aqoon-yahano ah oo waxa weeyaan soo tijaabiyey khibradna ku leh sidaadoo kale la soo noolaaday dhibka ay leedahayna waxa weeyaan soo arkay bulshadahaasina siday kaga gudbeen tajrubadoodii iyo experimentskoodii ama experiencegoodii waxa weeyaan ayadoo laga faa'iideysanayo waxa weeyaan sida waxa weeyaan lagu daweeyo kadibna waxa weeyaan dadkii ay noqdaan bulsho hal dhinac u wada jeedo is cafiso is saamaxdo kana gudubto nidaamyadii waxa weeyaan hor u jiray inay tahay waxyaabo wahmi ah oo qofka iska dhaadhiciyo sababtoo ah annaga Soomaali waxaan irahnaa 4.5 ay jiro laakiin dadaaba annaga noo arka Soomahan 0.5 inaan nahay oo dawladda Afrikaana ayaa waxay u arkaan Soomaalida inay dad 0.5 kulligooda wada yihiinba oo dad waxa weeyaan wixii la rabo laga sameeysan karo dad liita maskaxaan u liita dawlad ahaan u liita dhaqaale ahaan u liita fikir ahaan u liita aan meel u socdaan waxa weeyaan aan ogeyn waa Afrikaan laakiin qofka Soomaaliga uu leeyahay kuwan waa Afrikaan oo waxa weeyaan laga yaabo inuu isaga dhahayo laakiin Afrikaanti laftirkooda oo nidaam dawladeed haystaan Soomaalida oo dhan waxay u arkaan Soomaali maxay yihiin Soomaali inuu yiraahdo oo u arko aragti يعني حقيرات وحوين وكفي horta waa sidaas oo kale ya abo taas waa runta oo waxaan ku aragnaa ani badanaa siyaasadaha ama Soomaaliha aata ama Afrikada kala dhan haata lama socdo laakiin ayaan waxaan galay Pan African maxalla forum markaasa dadkii waxyaabo badan laga hadlay markaas waxa arkaysa dadkii Afrikaanka kale oo la dhahayo Somali like you know qof inaad tahay Soomaali ma nihin wanaga bedeleen magacii ku bedeleen zoo xayawaan hanoo lagu bedelay marka waxa waay qof walba waxa la yiri dadna si ku arkaan dadna moogta si ay u aragtaa marka horta waxa fiican annaka inaan runta isku sheegno sida tiri wacyigelintan aniga waxaan mar walba waxyaabaha bulshada ay iska jirto ama ka gaabiso aan uga hadlaa waxay tahay sida u sheegta hadii dhabta la taabanin waxan ilama helaayo mid kale jirtan waxa dadkeenan dibadaha ku nool oo jaanis u yeeshtay inay wadankii ka soo tagaan ay dhaqankii Soomaaliya iyo dhaqamadan kale aan joogno
waxaan helnay jaanis waxyaabaha isku barbar dhigno marka meeshan ku noolna camal ani hadda UK aan joogaa waxaa arkaysaa Soomaalida waa dad ka dhex baxsan dadka Ingiriiska ama ha noqdaan dadka Britishka oo Hindi ha noqdaan ama Afrikaanada kale ha noqdaan ama dadka Caribbean-ka ha noqdaan marka dadka dhex gashin waxaa arkaysaa Soomaali ahaan in anaka isku sheegno for example madowga kale waa dad xun waa dad wada tuugo waa dad drugs gadaan waa dad maxaa la dhahaa saan gabdhaheena ma guursan karaan laakiin markaad shaqo ku baratid oo darisnimo ku baratid oo asxaabnimo ku baratid waxaa arkaysaa dad waxa laga sheegay aanan wax ka jira male ani marka waan fikiray sheekadan Soomaaliya oo laga sameeyay dadkan 0.5ka loo bixiyay waxaan isir markaan u fiirsaday nin shaqaysanay ama beeraha ka soo fasho ama kabaha soo toliyo ama musqul ha soo dhaqdo oo mataqaana oo xoog leh oo laga yaabo inuu ninkaas iska jiifo ka qurux badan yahay waxay ama propaganda gabdhihii loogu diiday ama la dhisay maanta marka waxa way gabdhihii propagandadaas fahmeen ya waxa u maleynaa mar dhow inay imaanaysa farka gurubyada isku waceen inaa mataqaana proposaliyad badan oo sidii ma aragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam loo weydiisan jiray inuu guursado ceeb ma aha in rag badan la weydiisto la dhaho na guursada because waxa waaye beenta waxa waaye waqti yaray soconaysaa marka way soo afjarmi doontaa insha allah qabiil wax mataraayo 30 sano dhibaato nagu hayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiis wuxuu ku yiri iska ilaaliya naceebka maxaa yeelay sida sakiinti ayay diintiina u xiiraysaa marka waa fahmaysaa intaa walaalkaa kale ku maqan tahay naceebka adiga kugu soo galaa marka waxaa sida basasha la fiiqaa hebelaan ka siinaane laftaasaan ka siinaa jilibkaasaan ka siinaa ilaa faryarey la tago haddana faryareydii isnacayso marka intaasna kaftan waaye oo ummadda waxaa waa inay fahmaan waaye qof ka fiican ma laha nabigeena calayhi salaatu wasalaam khudbadiisa ugu dambeysay wuu noo sheegay wuxuu ka hadlay in haweenka la xushmeeyo laga taxadiro wuxuu ka hadlay in wadaniyadda rasiistanimada maxaa la dhahaa kala saraynta intaas la iska ilaaliyo khudbadiisa iyo in diinta inay kaamil noqotay uusan nebi dambe ka dambeyn doonin uusan jirin marka haddaa aragtid inaad fahamtid diintan aan very passionate Soomaalida aragtid waa jecelnaana diinta markaa si usii fiirisid waxaad leedahay actually ma ku dhaqantaa because haddaad ku dhaqmi lahayd laba qof isdagaalasho lama arkeen qof yasa lama arkeen 30 sano dad isdila lama arkeen waxaasoo dhan bulshada way ka nadiifmi lahayd way ka nadiifsami lahayd marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo within the Bantu community waxaa arkaysaa dad badan oo social media joogo oo marar qaarkood la isku dagaalaa mar la dhahaayo jareer weyne waa magacaas ma rabna inoo lagu waco waxaa rabnaa Bantu inoo lagu waco marka maxaa sax magacee sax magacee because this is waa chance wax lagu barto oo wax lagu kaleer garay mahadsanida su'aashaas horta waxay aad ugu fiicneed dadka muxuu ahaa taariikhda aad waxa weeyaan ugu takhasusay sidoo kale dadka qabaa'ilada aad ugu dhex jiro in waxa weeyaan loo waraysto waa ka fiican sababta waxay tahay aniga xaafadda aan ku koray ama hooyada iyo aabahayga Allah u naxariistay inta aan la noolaa waxa weeyaan maalin isagoo qabaliyad iyo qabaa'il ka sheekeenay waxa weeyaan ma maqlin oo wax qof dhaga u leh ma ahayn dad wuxuu ahaa mujtamac kala duwan dad fara badan oo kala duwan saaxiib lah oo bulshada ku jiro sidaa darteeda yani maalinna ma maqal meel xataa qabiil waxa weeyaan aabahaygu kaga sheekeenayo ama hooyaday waxa weeyaan ay kaga sheekeenayso ma maqlin laakiin sidaa sheegtay waxaa jirto in bulshadii dhexdeeda oo hadda مثلا jareer weyne Soomaali Bantu in la isku haysto oo dadka qaarkooda oo walaalaheena gaar ahaan waxa la yiraahdaa gosha dadka u badan ama jubbooyinka dadka u badan
waxay aaminsan yihiin isticmaalka ereyga jareer inuusan sax ahayn Soomaali Bantu in la yiraahdo dadna waxay yiraahdeen waxa weeyaan jareer wuxuu la micno yahay Afrikaanka muxuu ahaa ku nool Soomaaliya ayuu la micno yahay marka Afrikaanka haduu joogo Soomaaliya haduu joogo waa jareer waxa weeyaan ma noqonayo dadna waxay ku leeyihiin Bantu waxaan u leenahay waxa weeyaan our origin aan ka hadlaynaa waa dad waxa weeyaan ka soo jeeda bulshooyinka Bantuga la yiraahdo oo East and Central Africa waxa weeyaan ka soo Central Africa ka soo jeedo ayaa waxa weeyaan loola jeedaa doodahaasi waxa weeyaan doodo waxa weeyaan jiray waayo oo waxa weeyaan deeply ah oo dad waxa weeyaan doodo adag waxa weeyaan dadka dhaxdooda ay ka yeesheen qaarkooda waxa weeyaan ay ku kala tageen jareernimada sida dadka ma waxay ka tahay matina loola jeedaa qof kasto midalan tin adag hatta haduu beel kale ka dhashay ma jareer loola jeedaa tusaalahan hadii uu ninkan uu ka dhashay hawiye ama daarood uu ka dhashay uu tima adag yahay ma waxay ka dhigan tahay inuu isagana jareer yahay san weynaanta oo kale miyaa loola jeedaa jareernimada haddii ka waran aniga cabdifataax ah oo waxa weeyaan nin sankayga saddex jibaarkiisa uu leeyahay laakiin qabaa'ilada kasoo jeeda ma waxaa leeyahay cabdifataax waxa weeyaan waa qabiil hebelna waxa weeye waa jareer miyaa leeyahay jareernimada ma shakliya mise qabaa'il mucayana loo yaqaanaa laftirkeeda qeexida waxa weeyaan u baahan tahay waayo aan kaftamay mararka qaarkiisa aniga markaan isfiiriyo waxaa laga yaabaa dad qaarkooda Soomaali Maxamed ay wada taqaano iyo aniga markii la soo hordhigo aniga inaan bani Hashim noqonayo oo Quraysh aan noqonayo macnaha xaga waxa weeyaan ya marka midab ahaan markii la yiraahdo iyo shakli ahaan markii la yiraahdo haddana la leeyahay hebelna waa laandheer hebelna waxa weeyaan waa laangaab marka jareernimada مدد معين يا قبائل معينة وقبيل هبل يا قبيل هبل يا قبيل هبل وجرير ميان لنا مثل عد كستو وجي جيدا وحويان سن كيد وين هاي تنتادن وحويا أكتهاي وحلنا هاي وجرير معناها ضوضة تاجن واي waxa keenayna waxa weeyaan rawda marka xaqiiqda loo hadlo Soomaalida guud ahaanba taariikhdooda markaad fiiriso yaa qoray waxaad maqlaysaa nin oo masaariya qoray waxaad maqlaysaa oo faraacinada waxa qoray nin Iraaqiya qoray Soomaalidii qoraalka ay sameeyeen intooda badan waxa laga yaabaa inay intooda badan soo xigtaan reference ay ka dhigtaan nimanka taariikhiga qoran laakiin ma jiro madxaf maanta yaalo taariikhda Soomaaliya Kosheti iyo waxa weeyaan Bantu iyo whatsoever Portuguese iyo muxuu ahaa Barawani iyo muxuu ahaa Arab iyo Iran iyo waxa rabtade meesha ka yimaadaan asalkooda afkaas laga sheegaa laakiin xaqiiqatan wax rasmi ah oo reference leh oo taariikh rasmi ah ma jirto waxayna dhan waxa waaye wax qoran ma aha waxyaabo oral society waayo qof walba waxa waaye wuxuu rabo iska dhaadhiciyay qof walba waxa weeyaan beelaha qaarkood waxa la yiraahdaa beel heblaaye waxa weeye ahaan jirtay beel waxa jirto hawiye ah haddana waxa lagu leeyahay waxa la dhalatay beel kale waxa weeyaan daarood waxa weeye ku jirta alla leeyahay beel heblaaye waxa weeye isla dhasheen beel waxa weeyaan ka soo jeedo Soomaalida kilinka shanaad ama Djibouti oo la leeyahay Soomaalida hebel iyo irir Soomaali isku yihiin hebel isku يعني Soomaalida nin walba maalina waxa weeyaan hebel beel heblaayo ahaan jira maanta waxa xagaas uu ku geel qashay beel hebel waxa way ka mid noqday la leeyahay marka taas waxa keenay waxa weeyaan identity-geena sometimes inuu waxa weeyaan dood badan waxa way ka taagan tahay waxa keenayna waxa weeyaan annagaan qorin taariikhdeeni oo waxyaabo isa soo socday oo silsilad ahaa oo na soo gaaray ma jiraan waxana soo gaaray waxa weeyaan waa sheekooyin waxana soo gaaray waxa waa waxyaabo aan isku bixinay waxana soo gaaray waxa weeyaan taariikhda waxa qora ninka guuleystaa qora ama awoodda laha qora wax noocaas u eg ayaana soo gaaray markaas waxa way meedihii cidii markaas joogtay oo ama awood aqooneed lahayd ama awood xukun lahayd ayaa umadii kale wixii ku shubtay wixii waxa way lagu barbaaray taasa keenaysa marka qaladaad fara badan oo taariikhi ah inuu jiro laakiin su'aashaas iyada ah runtii waxay ku haboon tahay dad iiga aqoon badan iiga aqoon fiican oo dhankaasi xagga taariikhda waxa weeyaan ku takhasusay waana jeclaan lahaa aniga inaan aad waxa weeyaan u dhaxgalo taariikhda Soomaaliga inkastoo aanu takhasuskayga ahayn haddana aanan jeclaynin xataa ka hadalkeeda oo dadka aadka u jecel in waxyaabahaas laga gudbo oo dood iyo wacyi gelin dheer kadib markii la galo si saafi ah loo gudbo la yiraahdo Soomaaliya ayadaaba hal qabiil ah in la yiraahdo dadka aad u jecel ayaan waxa weeyaan ahay marka laakiin qadiyada hadda aad sheegtay oo amaarinta issue-ga hadda aad raise gareysay labada arin in la isku haysto waa arin jirta
mahadsantahay si aad u tafatirana noogu fasirtay waana runta wax qiimo leh oo u baahan in la sii wada run ahaanti maaha aniga rooda ahaan waxaan aaminsanahay inaan hal nahnay waxaan aaminsanahay dad madow ah oo afrikaan inaan nahnay inaan muslim nahnay kadib waxaa nagu filan adiga labaata aan dadiga ahay hooyaan ahay enough labels waa haysan already marka maba u baahnina qabiil hebelo waa nahnay kanaa nahnay ma fahamtay keliya waxay keenaysaa inay aan kaa dhexgale waxaa jirtay qisa cajiib ah oo waxa weeyaan oo sheeko dhalinyaro aan meel ku wada fadhinay mar waa xilli hore waaye adiga 98-99 aadaa loo kaftamayay marka Soomaalida waa la socotaa nin kastaba suu u socdo abtirkiisa shab wuxuu dhaxgeliyay Nabiilaahi Ciisa qaar Nabiilaahi Isxaaq isgeliyeen qaar waxa weeyaan bani Haashim ka dhacan sida loo socday bani Haashim bin Abd Manaaf bin Qusay bin Kilaab ilaa iyo waxa weeyaan Nabiilaahi Maxamed waxa weeyaan lisgay oo hebel waa Quraysh hebel waa marka mid waxa weeyaan ciidaheena oo jareer ah waxa weeyaan maalin kasta marka wixii ku soo noqdo hebel waxa weeyaan Arab waay waxa weeyaan Nabiilaahi Ismaaciil oo sheegtaa hebel Arab waay Nabiilaahi Maxamed toos u gala Ashraaf waay hebel waxa weeyaan Isxaaq toos u gala Nabiilaahi Isxaaq bin Yaqub bin Isxaaq waxa weeyaan toos u galaan waxana akhi marka nin aad quraanka u yaqaaneen waxa weeyaan uu ahaa markaas wuxuu yiri annagaba Nabiilaahi Muuse galna hada sheekadaas noo keentay waa la weydiiyay marka waxa la yiri maxaa ku tiri Nabiilaahi Muuse see u gashay markaas wuxuu yiri Ilaahay soo ma dhihin fawakazahu Muuse faqada alayhi Nabiilaahi Muuse nin murqihiisa duuduuban oo xoogan u ahaa jareertana saas oo kale waa marka annagana xagaasan ka soo jeednaa u yiri waaruntiisa marka nin walba waxa waa meel isgal laakiin that's not reality ما شاء الله نين عقلي بدن وحو هاي ما أركينه situation كوجري أو ما تقانا حل فضد أو ما تقانا كفيلن أوكاني ما شاء الله إلهي هذا إن والله وحواي وحد سيسة picture آد وقروح بدن سؤال شيء وجود بيس وحواي عبد الفتاح قاسم إن ما دامت هنين ليراه وما شاء الله markay noqoto career-kaaga heer aad u sare ka gaaray maxaa dhalinyarada kula talin lahayd skills maxay u baahan yihiin ama dadaal nooce ah u baahan yihiin si mataqaana ay u gaaraan yoolkooda rawda aad iyo aad waxa waa u mahadsan tahay horta dhalinyarada waa muhiim inay yeeshaan ambition ama tumuux inay yeeshaan taasina waxa lagu xaqiijin karaa rabitaan iyo go'aan iyo in Ilaahay waxa weeyaan la tala saarto hore loo socdo dal waxaan ka soo jeednaa xaalkiisa aan wada ognahay oo xaalada badan waxa weeyaan kala duwan soo maray laakiin hadda Ilaahan kaga mahad celinaynaa in marxaladihii adkaa iyo taariikhihii qaraara in waxa weeyaan laga sii gudbaayo hore looga sii socdo haddana waxaad dareemaysaa markastaba inay wili ixdi ay waxa weeyaan ay jirto waxa laga yaabaa qofka dabaalka ah PhD-da kama dhigto qof caaqil ah kama dhigto dadnimana ma geliso damirna waxa way uma yeesho tusaalaha ugu fudud aan soo qaato waxay tahay nin waxa laga yaabaa dhaqaale fiican haysta aqoon leh professor ah shahaadooyinka ugu sarsare wato PhD holder ah gaari uu saaran yahay biyo waxa weeyaan ku cawaya wadada ku tuuraya ama tissue wadada ku tuuraya hooyo masaakiin ah oo laga yaabo xataa inaysan dugsi xataa soo dhiganin quraan aysan soo dhiganin inay qashankii meesha ka qaado ama ay xaaqdo marka damiirka iyo dadnimada ma ahan shahaadooyin iyo warqado badan la sita ma aha waa waxyaabo qofka bini aadamka ah Ilaahay uu ku abuuray dhalinyarada marka waxaan rabaa inaan u jeediyo talooyin oo ay ugu horeyso in loo midoobo horta dhibaatooyinkan jira sidii looga bixi lahaa kaalin weyn laga qaato waxa weeyaan wacyigelinta bulshada ayadoo laga faa'iideysanayo taariikhii waxa weeyaan la soo gudbay run isu sheegna waxa weeyaan lagu dabaalayo tusaale ahaan taariikhaha sidoodaba waxa la yiraahdaa duruus ayaa laga qaataa cashira laga qaataa cashiradaasoo qaladaadkeedana looga fogaado mustaqbalka faa'iidooyinkoodana ama waxyaabihii wanaagsan oo positive sidekiisana waxa weeyaan looga faa'iideysto taariikhaha
hutu iyo tutsi oo kale tusaale ahaana waxa weeyaan aan usoo qaadanay tusaalaha ugu yar hadeertaan annaga nidaamo waxaa ka jiro cajiib ah dalkeena oo la yiraahdo nidaam maamul goboleed ama dowlad goboleedyo ayaa ka jira dowlad goboleedyadaasi qofka waxaa laga yaabaa in dhan qabiil waxa weeye laga fiiriyo muwaadinka Soomaaliyeed maanta inuu leeyahay qofa waxa weeyaan naga dhibaataysan oo naga xanuunsan oo isbitaal ku filan ma haysto waxbarasho ku filan ma haysto waxaa laga yaabaa in Liibiya dhibaato lagu geysto xuduud hebel dhibaato lagu geysto Yurub caruurtii waxa weeye laga qaato mar dhaxdaas waxaan fiirsanaynay gabar Soomaali oo Mareykanka Ohio inay ahayd aan jeclahay gabar laga qaadanayo oo ninka la yiraahdo Dawacasar oo live uu ku jirayo waxa weeye dhibaatooyin noocaas oo kale waxa weeyaan ka jiro asagoo marka muwaadin ah dalkiisa ku sugan wax bartay shaqo la'aan waay isagoo shaqo la'aan ah marka wuxuu isaga faraxsan yahay nin beeshiisa inuu xil iska hayo yuusan waxba ku helin xataa ma fiirinayo dantiisa kama fiirinayo yaa adiga ku siin kara fursad aad dalkan waxa way ku hogaamiso yaa fursad ku siin kara wixii maanta aad ku maareen lahayd aqoontaada aad hore waxa way ugu sii qaadan lahayd kama fiirinayo marka intii cudurkaas uu jiro waxay tahay inaan hore loo soconin marka dhalinyarada waanadeedu waxay tahay in marka ugu horeyso waxa way alla laga baqo marka labaadna nidaamkan hadeertaan oo dalkeena aafeeyay dhibaatada noo geystay ee qabyaalada ahna waxa weeyaan in laga fogaado dadkana waxa weeyaan laga wacyi geliyo dadkana ay ku midoobaan xirfadaha ay ku midoobaan inta fanaanin isla ah xirfadaas inay walaalo ku noqdaan saaxiibo ku noqdaan inta warbaahinta ka shaqeysa inay xirfadaas waxa weeyaan ku saaxiibaan inta culimo ah culimada dhanka diinta ah intaas inay waxa weeyaan ku noqdaan muxuu ahaa sheeg walaalo ay ku noqdaan ay sida isku xiriiriyaan qof walbaba markuu leeyahay bahdaada yaa waa aniga waxa way fanaan waay bahdaada yaa bahda sport waay bahdaada yaa waay waxa way warbaahineed waay inaan iraahno oo beelaha bedelkeeda aan waxa weeyaan taas aan ku dadaalno meesha ugu sareyso waxa weeyaan wax laga saxaayana bulshada waxa weeyaan waa guryaha in dib loogu laabto gabadha aad guursanayso ama gabadha wiilka ay guursanayso inay u fiiriso inaysan u fiirinin bimujarrad u yahay waa la socotaan marka qaarkiis waxa arkaysaa wiil hoblow waxa way waa daroogiste dadku dhibay dadku dilay gabar hebel oo reer habartiisa ha lagu daro oo gabadhan masaakiinta xuquuqdeedii aawi sababta ninka xun oo waxa weeyaan aan wili la hagaajin lala soo aadayo maxay tahay ama gabar heblaayo waa sidaas waxa weeyaan waxaas lagu soo sheegay ceebtaas lagu soo sheegay wiil heblow waxa weeyaan ha lagu qaarjiyo laakiin dadka markii ay u fiiriyaan qofka xulashada markuu sameeyo gabar wanaagsan wiil wanaagsan markay isguursadaan meesha waxa ka dhalanaya waa ubad wanaagsan ubadkaasna oo lagu kobcinayo dhaqan wanaagsan oo diinta iyo akhlaaqda wanaagsan lagu kobcinayo aanan aaminsanin qabyaalad iyo waxa la midka marka diinteena islaamka si sax ah aan u tarjumno dhaqankeena suuban Soomaalida si sax aan u tarjumno aan ka faa'iideysano dawladaha horumaray waxyaabaha ay ku horumareen bulshada caalamka waxyaabaha ay ka doodayaan aan waxa weeyaan fiirino iyo waxyaabaha anaga aan ka doodeyno waxyaabaha iyaga ay ku horumareen iyo waxyaabaha anaga dib noo dhigay waxa weeyaan aan isbarbar dhigno si markaas dibka waxa weeyaan na haysto aan kaga gudubno marka guud ahaan dhalinyarada intaas waxa weeyaan aan u soo jeedinayaa hadii aan rabno inaan noqono bulshad ilbax ah horumarsan oo waxa weeyaan progress waxa weeyaan sameeysan ما شاء الله هذا ما سنتها بذني عبد الفتاح أنا جي سؤالي واحد ميستي just dadkana daawanaya ayaa waxay rabaan hal su'aal waxaa la dhahay maadaama shacabka ay is-unsuriyeen xildhibaanadan waxaas ma ku aragteen oo ma ka dhexdhacdaa dhexdooda siyaasadda dhexdeeda horta siyaasadda sideedaba waa dano waay waxa arrimaha bulshada waxay kaga duwan tahay siyaasadda dadka dana isku xira qof walba qofku ku dan yahay ayuu waxa weeyaan kudlo ama alliance uu la sameeyaa tusaale ahaan aniga nabad iyo nololaan waxa weeye 4 sano la soo dhaafi ahaa inkastoo markayga horeba dawlad sideedaba ay wax weyn iga dhigan tahay aan ka soo horjeesan dawladii soo jiro dhan inta aan soo gaaray siyaad bar in yaraan ka soo gaaray inta dambana waa Cabdiqaasin wixii ka dambeeyay dawlad kama soo horjeesan nabad iyo nolol inta aan waxa weeye xildhibaano waxa jiro kala beel ah laakiin isku dantooda ka dhex arkay dawladnimadan xildhibaano kale walaalaheena naga aragti duwan oo siyaasadda iyo hab maamulka dawladda dhaliilsan iyagana isku aragti ah kala beel ah tusaalaha ugu fudud
jareer markii la fiiriyo 7 xildhibaan ay ku leedahay marka lagu dar aqalka sare 8 waay 8dooda isku ra'yi maaha hal aragti ma wada xambaarsana aragtida way ku kala duwan yihiin discriminationka ma waxa loo fiirinayaa qaabka awood qaybsiga yes way jirtaa oo qaad awood qaybsiga dhibaatooyin way ka jiraan waa anigii ku tiriyay laakiin aniga qofna ima dhihi karto wariyaa jareeriyo ma hadli kartid qof ima dhihi karto wariyaa jareeriyo inta uu coday qof ima dhihi karto oo waa aragto cida wax u qariimaba jirtaba anoo xildhibaan ahaa iyo anoo hadda wasiir ahaaba panelkaas waxa weeyaan waa istaagayaa wixii aniga aan aaminsanahay aragtideeda waxa weeyaan ka hadlayaa meelo badan oo dhalinyaro aan kula hadlayna waxa weeyaan waa ay jiraan ama munaasabadooyin fara badan cid aan kaga gambado fikirkeyga ma jirto cid aan kaga xishoodana ma jirto cid aan dhahay dhibaatay ku geysan kartaa ama ku waxbay ku yeeli kartaa ma jirto aragtideeda siyaasadeed iyo aragtideeda bulshadeed qof waxa weeyaan kaga heebaysanayo maba jirtaba oo aan waxa weeyaan marka kama jirto arrimahaas iyaga oo xaqiraada siyaasadeed siyaasadda gudaheeda ama baarlamaanka gudaheeda waxa weeyaan kama jirto baarlamaanka kutlooyin ayuu isugu xiran yahay daneena waxa weeyaan kala raacdaan nin walba dantiisa meeshii jirto ayuu waxa weeyaan ula jiraa maasha allah taas waxaan malaynayaa walaalkeen ku su-aasha isku weydiiyo ugu soo jawaabtay annakan dhammaanteena farxadeena gelinaysaa maxaa yeelay banaanka waxaan ka aaminsanahay waa waqti dadka ummadda soomaaliyeed shaki weyn ayaa waxaa kaga jiro ama dowladda ha noqoto ama baarlamaanka ha noqoto ama any system oo dhisan shakiyan ka qabnaa marka to know dadkii inay dandan isku raacayaan aysan qabiil isku raacaynin waa mahad alle waa horumar la gaaray waxaan rajaynaynaa taas inay sii badan doonto oo mataqaana qabyaaladda iyo cunsuriyadda iyo wixii xun oo dhan aan ka harno aan noqono ummad ilaahay ka raaliyahay oo wanaag iskugu imaado mudane cabdifitaax qaasim aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qiimaha badan aad noo soo hurtay cawada iyadoo waqti dambe ay soomaali idin tahay thank you so much aboowe salaama ilaahay ku sharfo waana mahadsantihiin daawadayaal dhammaantiin aad iyo aad ayaad u mahadsantahay annaga waxaa waaye saacadaanan howlgalnaa ma hurudno maasha allah aad mahadsantahay rawda aad iyo aad mahadsantihiin allah idin wada xafido bulshooyinka aad joogtaana insha allah inaad nagu matashaan matalaad wanaagsan oo waxa weeyaan base u ah diinteena islaamka iyo akhlaaqdeeda wanaagsan waxaadna noo tihiin ambassadors ayaa waxa weeye noo tihiin sidoo kale dhaliilo aan qabno waa jiraan oo mararka qaarkiis waxaa la yidhaahdaa qabyaaladda waxay waxa weeyaan nooga timaadaa soomaalida gudaha qabyaalad kama jirta markaas la yidhaahdaa laakiin dibadda meesha aad iyo aad loo baraati gareeyo waxa weeyaan waa dibadda la yidhaahdaa hadday ahaan lahayd dad si waxbarasho ku aaday ama hadday ahaan lahayn dad si caadi ah waxa wada nool oo la leeyahay mathalan dal hebel ama ingiriiska oo kale northern london waxa weeyaan beel heblaa u badan southka waxa u badan hebloa u badan sweden oo kale meel heblaay beel heblaa u badan waxyaabahaas oo kale ayaan waxa weeyaan runtii maqalnaa marka bulshada wacyigelinta noocan oo kale runtii wax weyn ay kaga dhigan tahay qofka in maskaxdaas waxa weeyaan laga soxo duulaan oo xagga maskaxda jiro marka in wacyigelintaas waxa weeyaan lagu dhaqo wasaqda waxa weeyaan degtay maskaxdaasi runtii waxaa qayb ka ah howlahan hadeertaan aad u wadiin waxaana rajaynayaa inaad doodaha macnaha leh iyo iishuugan noocan oo kale bulshada in loo badiyo oo si sariix ah oo waadix ah oo clear ah inay waxa weeyaan u wada hadlaan waa hubaa in waxa weeyaan laga baxayo waqtigaas waa laga yaabaa inuu dheeraado laakiin insha Allah ta'ala Soomaali waa ay ka bixi doontaa aad iyo aad u mahadsantiin Allah idin wada xafido thank you very much everyone assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh most welcome alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh